السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خيارتها ودنا قد ونيس أي كل أنتم أكثر من الكستوى جوك تان كسر وهذا وركة تلفزيون كسماري نيوز ويدين كاي أنا يشتري سمعنا هذا مقدشو قضاء أو كذا وندون تان وحى كمدة مدحونها جمهورية الصومالية حسن الشيخ محمود يوفده جامعة يوم ببحي دالك تركيا كديب على الصومال شجعين وكهلا مدحض سريع دالك عسير رئيس الوزراء عمر عبد الرشيد علي شرمارك ayaa war-saxaafadeed uu ka soo saaray xafiiskiisa waxa uu ku sheegay in xiriirka dawladaha Soomaaliya iyo Sweden uu yahay mid aad u wanaagsan. madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siraanyo ayaa isna magacaabay guddiga qabanqaabada xuska 18 May oo ku beegan xilliga ay Soomaaliland shaacisay inay ka go'day Soomaaliya inteeda kale. wafdi ka socda aan dhexdeeda ka kooban xildhibaano iyo siyaasiyiin ka soo jeeda gobolka Hiiraan oo maalmahanba ku sugnaa magaalada Beledweyne ee xarunta gobolkaasi ayaa waxay kulamo la qaateen qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan gobolkaasi. munaasabad lagu xuseeyay maalinta la dagaalanka xaalufinta dhirta ayaa waxay ka dhacday magaalada Kismaayo waxaana ka qayb galay mas'uuliyiin ka socday maamulka Jubbaland. dadka barakacayaasha ah ee ku nool xiriyo ku yaala magaalada Baydhabo ayaa waxa la sheegay inay soo food saartay dhibaatooyin dhanka nolosha kadib markii ay roobab xoog leh ay ka deen deegaanadaasi ay waxyeello ka soo gaadhay guryahooda. iyo qaar ka mid ah hay'adaha samafalka oo walaac ka muujiyay xiritaanka xawaaradaha Soomaalida oo dhawaan ay xukuumadda Kenya albaabada isugu dhufatay. dhanka akhbaraadka dibaddana waxa ka mid ah madaxweynihii hore ee dalka Yemen oo wali diidan inuu ka baxo dalkaasi iyo sidoo kale dagaalo ka dhacay galbeedka dalka Ciraaq kuwaas oo u dhaxeeya ciidamada dawladda Ciraaq iyo sidoo kale dagaalyahanada ISIS. dawladdaas waxaan qaar ka mid ah qodobada aad ku daawan doontaan Somali News TV haatana ku soo dhawaada isagoo fidsan. madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta waxa uu aanbabaxay dalka Turkiga isaga iyo wafdi oo hogaaminayo waxaana la sheegay in booqashadiisu ay ka dambeysay kadib casuumada uu ka helay madaxda dalkaasi oo ka mid yahay madaxweynaha dalka Turkiga sida warbixinta nagu soo koobay wariyahana Axmed Xasan Ibrahim. wafdigan uu hogaaminayay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta u aanbabaxay dalka Turkiga iyadoo ay la socdeen mas'uuliyiin ka tirsan labada gol ee dawladda federaalka Soomaaliya. inta aysan ka bixin garoonka diyaaradaha magaalada Muqdisho waxaa ku sagootiyay xubno ka tirsan labada gol ee dawladda Soomaaliya waxaana madaxweynuhu la filayaa in uu kulamo la qaato madaxda sare ee dalka Turkiga. hase yeeshee dalka Turkiga kadib waxaa madaxweynaha la filayaa in uu u ambabaxo dalka Jordan halkaas oo uu casuumaad rasmi ah ka helay boqorka dalka Jordan. ra'iisul wasaaraha Soomaaliya mudane Cumar Cabdi Rashiid Cali Sharmaarke ayaa war-saxaafadeed uu ka soo saaray xafiiskiisa waxa uu ku sheegay in xiriirka u dhaxeeya dawladaha Soomaaliya iyo Sweden uu yahay mid aad u soo wanaagsananaya. kadib markii magaalada Muqdisho aan kuna kulmay 16 bishan safiirka dawladda Sweden u fadhiya Soomaaliya Danjira Mikael Lindfall waxa dib aan u xaqiijinay xiriirka wanaagsan ee ka dhaxeeya boqortooyada Sweden iyo dalkeena Soomaaliya ayuu yiri ra'iisul wasaaraha Soomaaliya. waxaan u muujinay mahadcelinta qotada dheer ee aan u hayno dawladda Sweden taasoo ku aadan dadaalada aan kala go'an lahayn oo ay la garab taagan yihiin Soomaaliya iyo sidii ay dib u dhis markaasi ay ugu sameyn lahayd hay'adaha dawladda Soomaaliya iyadoo sheegtay in Soomaaliya ay dawladda Sweden ay markaasi gacan ka geysan doonto sidii Soomaaliya ay cageeda markale isugu taagi lahayd. Sweden waxay hoy u tahay 10,000 oo Soomaaliya kuwaasoo ku qanacsan isla markaana dalkaasi ku haysta ganacsiyo kala duwan waxayna qoysaskooda iyo asxaabtooda Soomaaliya joogta ay siiyaan caawimaad muhiim ah nolosha dad badan oo Soomaaliya. sidaas waxa lagu yiri war-saxaafadeed ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaaraha Soomaaliya. waxaana intaasi war-saxaafadeedka sii dheeray dawladda Sweden waxay hormuud u tahay xuquuqda aadanaha ee adduunka iyadoo ku celcelisa sida ay uga go'an tahay ilaalinta kala duwanaanshaha isla markaana waxay xushmaysaa dhammaan dhaqamada diimaha ay ku jiraan Islaamka iyo sidoo kale dadka muslimiinta. ra'iisul wasaare Cumar Cabdi Rashiid ayaa hadalkiisa ku soo gabagabeeyay in xiriirka u dhaxeeya Soomaaliya iyo Sweden uusan ahayn mid la jabin karo. xiriirkeenu waxa uu soo bilowday sanadkii 1960
waxaana uu yahay mid ku dhisan danaha labada dal ayuu markaasi lagu soo gabagabeeyay war-saxaafadeedka ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha Soomaaliya. madaxweynaha Somaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siiraanyo ayaa isna maanta waxa uu magacaabay guddiga qabanqaabada xuska sanadka 24aad ee 18 May oo ku aastaysan xilliga ay Somaliland shaacisay inay ka go'day Soomaaliya inteeda kale. warbixintani waxaa magaalada Hargeysa inooga soo diray waryaheena Mukhtaar Ismaaciil Cali. madaxweynaha Somaliland Axmed Maxamed Siiraanyo ayaa wareegto uu ka soo saaray qasriga madaxtooyada Somaliland oo ku saxiixay yahay xogayaha gaarka ee xafiiska saxaafadda madaxtooyada Naasir Yuusuf Daahir lagu sheegay inuu lagu magacaabay guddiga qabanqaabada xuska sanad guurada 24aad ee 18 May waxaana guddigaasi gudoomiye looga dhigay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee Somaliland علي محمد ورن عدين حبناها قدقاسي كجرا ayaa waxa kamid ah wasiirka wasaaradda maaliyadda wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare wasiirka wasaaradda hawlaha guud wasiirka wasaaradda warfaafinta wasiirka wasaaradda deegaanka duqa caasimadda Hargeysa agaasimaha guud ee wasaaradda madaxtooyada gudoomiyaha xuquuqda aadamaha xildhibaan Axmed Diiriye Nacnac iyo Cabdilaahi Cismaan Geljire waxa wareegtadaasi madaxweyne Siiraanyo soo saaray lagu sheegay in madaxweyne Siiraanyo ka rajaynayo xubnahaasi in sida ugu dhaqsaha badan la hawlahooga u gutaan isagoo farin gudoomiyaasha degmooyinka iyo goboladaba inay wada shaqayn fiican la yeeshaan guddigaasi. Mukhtaar Ismaaciil Cali, Somali News, Hargeysa. wafdi ka kooban xildhibaano iyo siyaasiyiin ka soo jeeda gobolka Hiiraan oo maalmahanba ku sugnaa magaalada Beledweyne ayaa waxa ay ka warbixiyeen kulamo ay la qaateen qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan gobolkaasi. Khalid Maxamed Cismaan Khalid Ilkaasi ayaa Beledweyne warbixintani Somali News uga soo diray. qaar ka mid ah siyaasiyiin iyo xildhibaano ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalka oo maalmihii la soo dhaafay ku sugnaa magaalo xarumeedda Hiiraan ee Beledweyne oo wareysi gaar ah TV-ga Somali News TV ayaa si wadajir ah faahfaahin uga bixiyay waxyaabihii u qabsoomay muddadii ay ku sugnaayeen magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka waxaana ay sheegeen kulamo dheer kadib in dhawaan si toos ah oo u furmay shirka dib u heshiisiinta ayaa ka talinta gobolka Hiiraan ayna diyaariyeen howlkii lagu qaban lahaa shirkaasi. ugu horeyn waxaa halkaasi ka hadlay xildhibaan Abukaate Daahir Xasan Cabdi waxaana uu sheegay in ay diyaariyeen howl loogu talagalay inay fadhiistaan in ka badan 500 ergo oo ka qayb galaysa shirka dib u heshiisiinta isla markaana ka kala imaanaya degmooyinka kala duwan ee gobolka. New Somali TV labadaba waa salaamantihiin. inta waxaa fadhiya odayaashii ergooyinkii loogu talagalay inay diyaariyaan shirka dib u heshiisiinta ay ka talinta gobolka Hiiraan. shirkaasoo abaabulkiisa soo bilowday 20 maalmood mar laga joogo ergooyin kala duwan oo ilaa iyo 4 iyo 5 jeer kala yimid ay kulligood soo qulqulayeen kulligoodna imaanayeen gobolka Hiiraan si ay uga qayb qaataan ay ka talintii dib u heshiisiinta gobolka Hiiraan. markaan nimid waxaan ku bilownay marka ugu horeyso inaan la kulanno beelihii gobolka Hiiraan deganaa waxaan la kulannay beel walbaba goonideeda waxaan la kulannay mataqaanaa beelihii deganaa gobolka Hiiraan waxaan ka wada tashanay sidii aan u dhisi lahayn howlkii shirka lagu qaban lahaa oo hadda meesha aad wareysiga nooga qaadaysid ah howlkaasoo ilaa iyo 500 oo qofood qaada howlkaas oo loogu talagalay inay uu ku bilowdo dib u heshiisiinta oo maadaama gobolka Hiiraan la yiri macnaheedu waxay tahay ergooyinka inay ka imaanayaan degmo walba iyo gobol walba laakiin sidaad og tahay markii la yiraahdo Hiiraan magaalo kasta iyo degmo walba dadka degan ehelkoodii iyo wakiiladoodii iyo qaraabadoodii waxay ku sugan yihiin Hiiraan oo dhan ay joogaan dadka yimidna waa dadkii matali lahaa tuulo kasta iyo degmo kasta ee gobolka Hiiraan cid walba waa loogu baaqay inay ka soo qayb gasho waxaan mar labaad ugu cilna ugu baaqayaa dhammaan reer Hiiraan siyaasi xildhibaan waxgarad oo reer Hiiraan meel walba oo joogo xamar ha noqoto wadanka dibadiisa ha noqoto gudaha ha noqoto shirweynahan iyaga iskale waxaan ugu baaqaynaa inay shirweynaha ka soo wada qayb galaan. sidoo kale waxa halkaasi si wadajir ah uga hadlay qaar ka mid ah siyaasiyiinta garwadeenka ka ah shirkaasi. waxaan nahay ergooyinkii ka yimid meelo badan oo kala duwan una yimid dib u heshiisiin inay qabtaan reer Hiiraan u dhan yihiin
waxaana sheegaynaa in reer hiiraan kulli meelo kala duwan ka yimid ayagina aan la wada tashanay laguna heshiiyey dib u heshiisiin dhab ah in ay gaaraan waana isku waafaqeen aad baan isu waafaqnay niyadeeduna waa fiican tahay waa waqti dhow waa furmayaa walaalahayna oo macnaha ku turkuteen waxyaalahaas oo waxtuun kala qabaan shirka dib heshiisiinta inay kasoo qayb galaan ayaan jecelnahay si aan macnaha heer hiiraan meel isla dhigaan ka bacdina shirarka kale u gudubno xubnaha ergooyinka waa la qaybsado qabaa'ilada kuwaasoo ku salaysan qaab degaaneed iyo qaab qabiil iyo qaab siyaasadeed oo reer hiiraan ay ka soo jeedaan ani shirki diyaaray u yihiin ergooyinkana waa la kala qaatay ergooyinkana shirku sidaas uu ku furmayaa waxaana diyaar u nahay midnimada hiiraan iyo wada tashiga aayaha reer hiiraan in hiiraan oo hal mid ah taas way midda nolosheena marka tani wixii ka dambeeyay 18 bishii Maaj inuu ka soo gudubnay waxa magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ku soo qulqulay wafuud kala gidisan oo isugu jira siyaasiyiin waxgarad odayaal dhaqameed qurba joog iyo waliba xildhibaano ka tirsan baarlamaanka dawladda federaalka kuwaas oo u yimid magaalada Beledweyne ka qaybgalka shirka dib u heshiisiinta ee ay ka tilinta gobolka Hiiraan Khalid Maxamed Cismaan Khalid Alkacse Somali News TV Beledweyne munaasabad lagu xuseeyay maalinta la dagaalanka xaalufinta dhirta ayaa waxay ka dhacday magaalada Kismaayo waxaana munaasabadaasi ka soo qayb galay madaxda sarsare ee maamulka Jubbaland Jaamac Axmed Cali Joofane wariyaha Somali News ee magaalada Kismaayo ayaa warbixintan halkaas inooga soo diray xilli ay ku beegan tahay maalinta la dagaalanka xaalufka deegaanka ayaa munaasabad lagu xuseeyay maalintaasi waxa maanta lagu qabtay xaruntii hore ee caymiska ee magaalada Kismaayo wasaaradaha beeraha kalluumaysiga xanaanada xoolaha biyaha macdanta iyo beeyada ee maamulka Jubbaland ayaa iska kaashaday munaasabadan oo lagu xuseeyay 17 bisha Abriil oo ku aastaysan maalinta la dagaalanka xaalufka deegaanka ee adduunka munaasabada oo lagu soo bandhigay hal ku dhigyo looga soo horjeedo xaalufinta deegaanka ayaa waxa ka soo qayb galay madaxweyne ku-xigeenka Jubbaland Cabdulqaadir Lugu Dheere iyo wasiirada wasaaradaha soo qabanqaabiyay munaasabada Cabdulqaadir Lugu Dheere madaxweyne ku-xigeenka labaad ee maamulka Jubbaland ayaa gudaha xarunta caymiska ee magaalada Kismaayo waxa uu ku beeray geed uu ugu magac daray geedka nabadda Jubbaland ina maanta abuurno geedka nabadda Jubbaland ee koobaad halkan ku abuurno xarunta maamulka dawladda ee Jubbaland ku abuurno geedkan loogu magac daray geedka nabadda Jubbaland aad iyo aad ugu faraxsanahay maalinta waa maalin aad iyo aad u qiimo badan waxaana munaasabadan saldhig looga dhigayaa maadaama hadda la unkay lana dhaariyey baarlamaanka dowlad goboleedka Jubbaland nabadda waxaan saldhig u ah munaasabadan ah in geedka baarlamaankana loogu magac daro aad iyo aad ugu faraxsanahay ummadda Soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa in dhirta la abuuro la raalo nolosha waa dhirta yaa la jarin dhirta la badbaadiyo ugaarta la badbaadiyo sidoo kale wasiirka beeraha kalluumaysiga iyo xanaanada xoolaha iyo wasiirka biyaha macdanta iyo beeyada ee maamulka Jubbaland ayaa waxay si wada jir uga hadleen muhiimadda uu leeyahay deegaanka oo nabad guurka laga ilaaliyo maanta saad ogtiin baa waa maalinta xaalufka adduunka xaalufka iyo xaalufinta xaalufku waxa weeye in la xaalufiyo ama la waayo wixii jiray oo ay laha oo beeyada ka tirsanaa geedihii baa la xaalufiyey wixii badda ku jiray baa xaalufay dhirtii baa la jaray maxaa ka iman kara markaas cimiladii baa isbedelaysa wixii la xaalufay oo meesha ka baxay waa in la soo celiyaa waa in la joojiyaa midda kale dhuxusha la shidayo dhulka la banaynayo oo aan beeraha laga dhiganayn maanta waa maalintii xaalufka adduunka meel kasta oo adduunka ayaa laga xusayaa gobollo badan oo Soomaaliya laga xusaya annaguna iyadii baan xusaynaa waxaana ka qayb qaatay soo diyaarintan wasaaradda beeraha kalluunka iyo xoolaha wasaaradda biyaha iyo macdanta oo si wada iyo beeyada oo si wada jira barnaamijkan u soo diyaariyay waxaan geeda ku beeraynaa meelo badan oo ka tirsan magaalada Kismaayo iyo agagaarkeeda waxaan maanta xusaynaa maalinta beeyada adduunka ama xaalufka la dagaalanka xaalufka waxaan u sheegaynaa dadka caadaystay inay dhirta jaraan inay mamnuuc tahay in dhir qoyan la jaro maanta waa maalin adduunka oo dhan laga wada yaqaano
madaxweyne ku-xigeen kale waatu hadda lahaa isagoo madaxweynaha wakiilka ah waxaan maanta geedka ugu talagalay geedkii nabadda jubbaland waa la yaqaanaa anigaa ogaa ayada oo waddadan u dhexaysa kismaayo markaad ka baxda ilaa ay buulguud inta u dhexaysa 10 saac haddii la gaaro marooriga biyaha ka cabi jiray dadka ma mari jiray gaadiidka waa ka istaagi jiray ciidamo dowladda u diyaarsan dowladdii dhexe ayaa waxay deganaa jiray buurta lugla hoosteeda oo la dhihi jiray ciidanka ilaalinta ugaarta haddana tii aan soo celin rabnaa haddii alla ilmo xuska maalinta la dagaalanka xaalufinta deegaanka ayaa waxa uu ku soo beegmay xilli deegaano badan oo Soomaaliya ka tirsan ay ka socoto xaalufin ba'an oo deegaanka lagu hayo taas oo horseedi karta nabaad guur ku dhaca dhulka Soomaalida. Jaamac Axmed Cali Joofane, Somali News, Kismaayo. qaar ka mid ah hay-adaha samafalka ayaa waxay walaac ka muujiyeen xiritaanka xawaaladaha Soomaalida ee dhawaan ay xukuumadda Kenya albaabada isugu dhufatay. Wariyana Cumar Sheekh Nuur ayaa inoo soo koobaya warbixintaasi. hay-ado caalami ah oo gaaraya ilaa 15 hay-adood ayaa maanta walaac ka muujiyay go'aankii dawladda Kenya ay ku xirtay shirkadaha xawaaladaha ay Soomaalidu leeyihiin ee ku yaala gudaha wadankeeda. war-saxaafadeed ay si wada jir ah maanta oo Jimcaha ay u soo wada saareen hay-ado kala ah Oxfam, Care International, Adesso, World Vision ayay ku muujiyeen sida ay uga xun yihiin tallaabadii ay dawladda Kenya dhawaan ku xajirtay shirkado xawaaladeed oo ku yaala magaalada Nairobi kuwaas oo u adeegi jiray bulshada Soomaaliyeed ee ku dhaqan gudaha wadankaasi. shirkadaha xawaaladaha Soomaalida ee ka howlgala Kenya waxay bixiyaan adeegyo muhiim u ah shacabka waxayna haysteen ruqsado sharci ah oo ay ku shaqeynayeen gudaha wadankani ma ahayn in laga joojiyo shaqadooda iyadoo lagu marmarsiyoonayo al-shabaab ayaa lacag loogu diray. waxaa sidaas lagu yiray war-saxaafadeedka ay soo saareen hay-adaha caalamiga ah. hay-adahani caalamiga ah ayaa waxay ugu baaqeen dawladda wadankaasi Kenya inay dib ugu laabato go'aankeedii ahaa inay joojisay shirkadaha xawaaladaha dalkeeda ku yaala isla markaana ay si degdeg ah ay ugu ogolaato shirkadahaasi xawaaladaha inay shaqadoodii dib ay u bilaabaan. halka warkaas idinka imanaya waa telefishinka Somali News studio magaalada Muqdisho. dhanka akhbaaraadka dibaddana aan ku bilownay madaxweynihii hore ee dalka Yemen Cali Cabdalla Saalix ayaa waxa uu diidan yahay ilaa hadda inuu ka baxo dalkaasi. Cali Cabdalla Saalix madaxweynihii hore ee dalka Yemen ayaa sheegay inuusan marnaba ka bixi doonin dalkaasi xilli ay duqeymo dowladda Saudi Arabia ay hormuud ka tahay ay ka dhacayaan dalkaasi. Cali Cabdalla Saalix ayaa beeniyay warar ay baahiyeen saxaafadda khaliijka oo sheegayay ka dalbaday wadamada Carabta inay ka saaraan dalkaasi Yemen oo markaasi ay magangeliyo siiyaan. ma ihi qof doonaya inuu ka baxo dalkiisa mana doonaya inaan ku noolaado Jeddah, Paris ama Europe. dalka Yemen waa meeshii aan ku dhashay oo yana markaasi aan soo xukumayay ayuu yiri Cali Cabdalla Saalix. dagaalo ayaa waxay ka dhaceen galbeedka dalkaasi Ciraaq kuwaas oo u dhaxeeya dagaalyahanada ururka Daesh iyo sidoo kale ciidamada dawladda Ciraaq. ra'iisul wasaaraha dalka Ciraaq Haydar al-Abadi ayaa u sheegay warbaahinta in Daesh ay soo weerartay ciidankiisa ku sugan magaalada Beiji ee gobolka Anbar galbeedka wadankaasi Ciraaq. weerar isqarxina ayaa waxa ay ku gareen xarumo lagu sifeeyo saliid oo ku yaala bartamaha magaalada Beiji waxaana markii dambe u suurta gashay ciidanka Ciraaq inay dib u hantaan gacan ku haynta magaaladaasi. inta badan qaybaha waqooyi ee dalkaasi Ciraaq ayaa waxaa gacanta ku haya oo dhawaan la wareegay ururka Daesh kuwaas oo ka dagaalama dalalka Ciraaq iyo Syria oo markaasi ay colaado muddo sanada ay ka socdaan. dawladinta waxaa naga eeg war wixii dalka iyo dibadda naga soo gaaray iyadoo markaasi cidii warkeenu uu seegaana ay ka bogan karto bartaan internetka ku leenahay oo ah www.somnews.tv. inta warka xiga aan ku kulmi doonana waxaan idinkaga teganaa sidaas iyo nabadgelyo.